diyaarinta siyaasadda lagu mideynayo sharciga gaadiidka iyo duulista hawada ee dalka ayaa maanta looga arrinsanayay shirkan wadatashiga ee ka furmay Muqdisho waxaana ka qayb galay wasiirada gaadiidka ee maamul goboleedka xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya shirka oo socon doona muddo 2 maalin ah isla markaana ay soo qaban qaabisay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ayaa waxaa furay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoo diiradda lagu saarayo xoojinta wada shaqaynta wasaaradda gaadiidka ee dowladda dhexe iyo kuwa gobolada si loo helo siyaasad lagu mideynayo bixinta sharciyada gaadiidka iyo garoomada taasoo sare u qaadayso horumarinta adeegyadaasi wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad oo ka hadlay shirka ayaa ka warbixiyay ahmiyadda shirka iyo caqabadaha lagu xalinayo qodobada looga hadlayo shirka maanta qodobada ugu waaweyn waxa ka mid ah sidii loo heli lahaa hal siyaasad oo midaysan oo lagu maamulo gaadiidka iyo duulista hawada sida aad la socotaad waxa jira gobolada Soomaaliya oo dhan qolo kasta waxay leedahay maamul goboleed kasta wuxuu leeyahay taargooyin gooni oo ah registration baabuurta u gooni ah wixii raba ayaa dekadaha ka soo dago oo dhinaca gaadiidka oo kala ah wada marista waa sharcigiisii hore lama raaco marka si aan dawlad ugu ekaano hal dawlad waxaan rabnaa inaan ka wada hadalno sidii aan ku samaysan lahayn hal system hal registration system gaadiidka hal meel laga register gareeyo policies-ka lagu dhaqmo hal policy aan yeelano diyaaradaha kale iyo garoomada oo dhan hal sharci oo wadanka oo dhan sidii lagu yeelan lahaa inagoo haddana tixgelin iyo wada shaqayn iyo aanan waxba ka qaadanaynin maamul goboleedyada haddana sidii aan ku wada shaqayn lahayn inagoo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo furay shirka ayaa xusay in ka qaybgalayaasha shirka looga baahan yahay inay soo saaraan talooyin tilmaamaya in dadka Soomaalida yeeshaan hami sare oo ay kula tartamaan caalamka horumaray hankan oo la ekaado inaan aeroboortka nalal gelino oo habeenka aeroboorku shaqeeyo ma hawadeena inaan soo celino inuu hankan ahaado hankan waxa uu yahay in aeroboor la eg kuwa adduunyada ama dalalka dariska nala ah ama kuwa adduunyada inteeda kala mid la mid ah inaan dhisano hankan waxa uu yahay in aan samaysano dal lagu aamini karo dadka mustaqbalka naga sugaya inaan dal ku wareejino hankan waxa uu yahay dal aan uga maarano inaan ka qaxno dalkan oo aan dalal kale u qaxno inaan samaysano hankan waxa uu yahay in la dhiso Soomaaliya ka duwantan haddana waxay tahay inaan hankeena kor u dhigno mar walba dawladnimadu waxa ay tahay inaad la tartanto adduunyada inteeda kale waxa la rabaa marka aad aragtid aeroboorka Xamar ama Kismaayo oo aad dhooftid oo dibadda tagtid inay maskaxdaada ku soo dhacdo waa inaan dalkayga ka dhistaa aeroboorkan la mid ama kan wanaagsan Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.